وحمانتها شرفيا إلى قيب قالوا مناسبة بليسكا لباتن قولدي كسوريتي أساس كبليسكا جمهورية الصومال runtii munaasabadan waxay dheertay munaasabadaha kale maanta wax weyn bay dheer tahay ninkii dareersan uu dareersan yahay maanta halkan horteeda waxa fadhiya ciidamadii bilayska qaranka Soomaaliland ee gobolka Saaxil oo maanta darajadii ay ka muuqato oo dhammaan dalka oo dhan la wada gaarsiiyay amaanta iyo sharaftaana waxa iska leh xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland أحمد محمود سيرانيو آلية الله مهاجرنا وحن كفر أحسن عي همبلينا يا آدي وهمبلينا سنزورنا بلاتنات ما تعين حسينه أساس كي بوليس كا جمهورية الصومال همبليو waxaan jecelahay inaan soo goobo sababtoo ah waa farxad waxaan dhammaanteen ku wada faraxsanahay dalkeenna siduu hana qaaday sida uu booliisku hawsha uu habeeniyo maalin u hayo qaranka hambaliyada marka ka baxo waxaan jecelahay inaan xagga shacbiga laga qodobo idhaahdo shacbiga waxaan leeyahay siiba dhalinyarada waxaanu ku fadhinaa beeskeeno ah gundhigeeno ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala isaga nabadeena siiyay laakiin aynu ku wada niyadsanahay waa biliiska waxa mar walba aan aragnaa inay dhalinyaradu ku dhiiran tahay ama ay ku faradheer tahay biliiska waxaan jeclaan lahaa inaan yara caddeeyo aan yara fahansiiyo biliiskan labisan waa nin kula mida waa nin kula siman waa nin ka aqoon badan waa nin ilaahay subxaana wa tacaala uu qaranka u sakhiray inuu ku niyad samaado mushaharka yar ee uu ka qaato ee uu ku niyad saman yahay habeeniyo maalin uu ku ilaaliyo waxaan kusoo dhaweynayaa taliyaha qaybta gobolka saaxil gaashaanle cabdi cali xayd falyatafadal intaa waxa ay dheer maanta waxa weeye sanad guuradii ciidanka booliska ee 20aad boolisku sidaynu ka warhayno booliska Soomaaliland waxa la aasaasay 1993 qaabkii lagu aasaasay iyo taariikhdii lagu aasaasay haddaan idin ka warramo waxa weeye iyo maanta heerku marayo waxa weeye wax aad farqi aad u kala dheer haddaan idin ka warramo booliska markii ugu horreysay wax qayb sida loo aasaasay waxay ahayd de jiritaankeena iyo ma taqaanay dawladnimadeena oo adkaanin awgeed booliska markii hore waxa laga dhigay local police oo waxa weeye police deegaan ayaa lagu aasaasay waxaanu ka bilaabmay ma taqaanay degmo waliba inay booliskeeda ay maal geliso oo ay hawl geliso maayarkan ay hoos yimaadaan laakiinse kadib markii ay boolisku ay intaa ka horumareen ee adkaadeen waxa laga dhigay national police Somaliland waxa laga dhigay heer qaran baa laga dhigay maantana alxamdulillah rabbil caalamiin waxaanu soo gaadhnay heer wanaagsan oo ma taqaanay darajooyinkii aanu maad xiranahay oo ay sharaf noo tahay taana waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Siilaanyo anigoo ku hadlaya magaca booliska gobolka waxaan jecelahay horta marka ugu horeysa waxaan ku mahadnaqayaa ajiibkaana soo ajiibteen inaad ka soo qayb gashaan xafladan 20aad ee ciidanka aasaaska ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan jecelahay halkan inaan ka yar sharaxo waxqabadkii booliska sanadkan ama 10 bilood ee soo dhaafay dambiyadii dhacay wixii la xukumay wixii si gaaban ku dhamaaday wixii qabiyaha iyo shilalkii dhacay tirada guud ee 10 bilood dhacay dambiyada dhacay waxay yihiin waa 165 dhimasho waa 17 dhaawac waa 171 dhimashada xoolaha waa 69 marka laga reebo
280 neef oo daadku qaaday oo meesha la yidhaahdo Lafaruug uu ku qaaday khasaaraha gaadiidka waa 176 dhaawaca korontada waa 4 ama korontada waxa la yeelay